السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada janaalkayga Firdaws isku filan waa marka leeni video baliis hadii ay tahay markii kugu horeysay oo janaalka soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareyso asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Saxaabay soo dhawaada, alxamdulillaah ilaahay mahad u sugnaatay mar kale isoo celiya anoo caafimaad qabo. Waxaan rajaynayaa adinkana inaad caafimaad qabtaan sida anoo caafimaad qababa in kugu soo laabtay. maasha Allah tabaarakallah. Maanta guriga aan u jeedaan ayaa gudihiisa galeynaa insha Allah. Filadan xaafadan waxa ku yaal horta waxaa waaye filooyin gurigooda ugu badan waa doorka labaad uu ku eg yahay marka mana lahan wax lifti ah wax lifti ana ma lahan marka insha Allah doorkiisa koowaad waxaa waaye ardiga ka ugu horeeya oo laga galo waa ka aan u socday insha Allah taala oo maanta idila wadaagi doono. Waxay hor socota naagti oo guriga ninka waardiina uu qabo banaankaas waa u jeedin maasha Allah tabaarakallah. Guriga banaankiisa balkoonkiisa banaanka waa kaasa gurigan gudaha u soo galnay filada waa u jeedaan maasha Allah tabaarakallah. Fadhigiisa guriga waa kaasa ka xumahay idinkaga wada daaranayaa guriga inuu nal lahayn dhaxda bis uu nal ku leeyahay because wadankan masaarida guryahooda nal ma geliyaan sida badan dadkay kasta dhahan dadkan markay ka guuraan nalka dib ay uga fuqsadaan marka nalka way ka fuqsadeen. Guriga nal aan waa dhaxda nal ku jira oo saasay taa ninkii dhahay kan dhaxa waa laga fujinayo ninkii ugu dhahan hadayba cidi guurtay way u fujinaysaa marka cidiya ku dhigsato dhahay idinkana ku dhigsato insha Allah mar dhaw waa lagu dhaji doonaa haduu Ilaahay yiraahdo biidhnillaahi tacaala. Jikadii soo galnay jikada wali ma lahan meesha alaabta lagu dhaqayo ka go'an tahay. Jikooyinka wadankaana saa u jeedaan qofka asaa dhigto waxa uu jika ah oo rakiban oo ugu soo dagaysi mala meesha soo meesha oo shumshiinka la gelinahay jikada maasha Allah jika nadiif balko maxaa la dhahaa balaadkeeda dhulka ee mutuleelka iyo darbigeedaba nadiif ay wada yihiin maasha Allah. Guriga dhan horta aad u wada nadiif yahay oo maanta ba xataa qofka rabo way soo dagi kartaa. Guriga oo maxaa la dhahaa guriga guri nadiif oo dhaqan waana nasiib nadiifii maasha Allah tabaarakallah. Maalinka hadda ijaaray bisha hormeeya gurigan kireey marka kireynay saamoos ahaynin nadiif inkastoo ahay laakiin hadda aad ay u sii dhaqeen dhulka dhaan boorboor iyo wuxuu lahaa wixii dhan way ka nadiifiyeen maasha Allah. ilaa ajri xasanad Allah ka sii dadka way kala wanaagsan yihiin gurigan dad wanaagsana iska leh wanaagsan uu leeyahay kuwa xaariska waardiyaashana aad u fiican yihiin dadaa waxaan tahay ku dheeraayay 500 keen oo ku dhaqo dhulka laakiin waxba nama weysadin gabadha xataa waxay dheesay marka alaabta keenaysa soo wac guriga si nadiifinayay maasha Allah. Ilaahay xooggeeda u barakeeyo oo u jeedin guriga gaadhin uu leeyahay gaadhinkiisa ku qabtay balkoonka inta soo istaagay qolkan waa qolkii oo master roomka waay balkoonkiisa maasha Allah tabaarakallah. Gabadha abaaye Ilaahay waxa uga bariyay inuu ayadoo nabad qabto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kana asxaabay idinkana u soo duceeyo inuu Ilaahay salaam ku keeno biidhnillah oo safarka Ilaahay u soo fududeeyo ayadii awlaadeeda masar khayrkiisana Ilaahay soo xijiyo insha Allah ta'aala. waa kaasa qolkii maasha Allah waa qol weyn oo nadiif oo double classesna uu leeyahay oo haduu qabow imaado qabow zaid ma noqonayo gurigan. Qolkii kale toodna waa kaasa maasha Allah tabaarakallah asna sidoo kale nadiif u yahay musqushiisina way ka soo horjeedaa ayadana waa idin tusaaya insha Allah ta'aala haduu Ilaahay yiraahdo. kaasa qolka maasha Allah kiisa ayada ku wada qabtay musqusha nalkeeda weynaa xataa wuu ka waxaysan yahay ayada xataa kuma dhigno laakiin nal yar ay leedahay kii yaraya marka idinku tusooya maasha Allah tabaarakallah. halka waa lagu wada xiri doonaa biidhnillah haduu Ilaahay yiraahdo. Musqushiisa musqul nadiif oo weyn waaye ayadana u jeedaan maasha Allah tabaarakallah. Ilaahay u calfaabayo salaamana Allah ku keeno insha Allah. kaasa saddexda qol iyo musqushi iyo fadhiga iyo jikadii iyo musqushi yareed
ومرتدى انت واسو أركتين ما شاء الله تبارك الله هوسا ودكت مركا هذا وجيتين كرو كوري هوس واي هوسنا waxaa ku yaal fadhigaas aad iyo aad u weyn ka badan soo ma jeedaan laba daaqadood uu leeyahay albaabka loo banaanka dhanka garaashka qofkii baabuur garaashka inta baabuurka soo dhigtaa kaasoo kasoo dhex baxaya uu leeyahay maasha allah tabaaraka allah oo nadiif qol oo kale wuxuu leeyahay asna oo laakiin albaab lahaanin oo albaab idinka u sii nagu dhahay marka waa ujeedaan qolkaas waa ujeediin musqushana way ku dhegan tahay marka hoos waxaa ku yaalo musqusha iyo qolkii iyo fadhigii ku yaalaan iyo gaadhinka maasha allah tabaaraka allah ayaga carabaha waxay suubiyaan ninka oo baabuurka u wado kale hoos musqusha iyo qolka iyo isku anaysiiyaan maxaa la dhahaa hadday rabaan ciyaalkooda ugu dheeldheelaan haddaysa baabuur iyo waxba haysan marka gaadhinka imaanay gaadhinka ujeediin waa nadiif waxay kartooman iyo waxaa yaala maalinka way ka wada aruuriyeen wixii yaalo oo dhan tookadii hore hadda aaday u wada nadiifin way xaaqeen just rooga in la dhigo oo cawska ah ka maqan sida ilmaha uga ciyaaraan dhankaas kale ujeedaan tubaa ku rakiban oo markay samarka taho kale ilmaha iswiiminaa looga samayn karaa intaa loo dhigo geedka swimmingpoolka maasha allah tabaaraka allah guriga gudihiisa kusoo laabta haddana waa ujeedaan intuu weyni la egyahay hoos qolka waa kaasaa musqushi waa taasaa ayadana qolkia mar kale ku qabanaa musqushii ayadana mar kale ku qabtay lacagta kirada oo bishan juun siinaaye fiidiyooga markaa duubay waa 1 juun insha allahu tacaala wuxuuna idin soo gaari doonaa maanta oy tahay 2 juun biidni illaahi tacaala hadduu ilaahay yiraahdo hadduu qadka uu daciif noqdana waxaa laga yaabaa iyadoo 3 ku dhacday inuu idin soo gaaro halkaasaa lacagteeda way tirsatay fiidiyooga waxaa uga duubana si cadeen u noqdo fiidiyoogan insha allahu tacaala in ayada u dhiyo maadaama ninkeeda oo maqnaay oo ma imaanayo maanta ee igu tiri anaa waxaan diidaa inaan lacagta lasoo laabto markaa ayada kusoo wareejiyey saasna fiidiyoogana waa uga soo diyaariyey gurigan maasha allah tabaaraka allah guryasaan u waaweynoo gaadhinale waa la helaa laakiin xoogaa qarashkooda wuxuu yahay sida kuwa kale oo kale maaha kuwa 350 oo kale iyo maaha iyo 400 maaha laakiin guriga gaadhinle waa la helaa maasha allah banaanka soo baxnay maxaa la dhahaa meeshaas haddaa ujeedaan oo xadiiqada yar ku taalo ayadana waxaa ku yaalo xadaano oo ilmaha yaryarka se ii sheegeen ayaa ka ku taalo maasha allah tabaaraka allah guryaha aad u qurux badan yihiin allahumma baarik xaafadana xaafad degan oo nadiif oo buuq iyo qaylo iyo eeyo midna lahayn waaye maasha allah tabaaraka allah allahumma baarik ilaahay waxaa weydiinayaa abaayo inuu ilaahay nabad ku keeno walaalayaal usoo duceeya mar kale aan ka codsanayaa inuu ilaahay abaayo usoo fududeeyo ayadoo nabad ilaahay oo keeno insha allahu tacaala ayadii awlaadeeda mida ku ceeshaan ilaahay uga dhigo wadadan waxaa ku yaala iskoolka qadar mashaqa ku yaalo wadaas diro ilaa 3 daqiiqo camal 4 daqiiqo u jira oo lug ah oo qadar masaajidkan haddaad idin tusi doona insha allah asna masaajidna wuu u dhow yahay meel yar oo mool oo kafeteriyaal iyo meel laga cunteeyo iyo nootaas ha ujeedaan meeshaas bildinkaas dheer waaye mool yar oo ku yaala meesha dadka qaar moolasha ilmaha kusoo cayaarsiiyaan laakiin moolashaan mool cunto leh waaye meel wax laga cuno iyo waxaa waaye meel wax laga soo gato shopping iyo waxaas laakiin meel ilmo lagu cayaarsiiyo ma lahan city star oo kale meel ilmo lagu cayaarsiiyo leedahay moolkaas qaahira festival oo kale way leedahay laakiin kan ma laha marka meel yar oo luuqaan soo marnay dhismo ka socdo luuqaasaan soo galno soo marnay hadda waxaa u soconaa maxlaawi intaas yarta aan hadda soo marnay oo maxlaawi guriga u jiraa dhankan kaletoodna annaga geeska kale oo qadar mashaqan soo aaday dhanka maxlaawi qofkii yaqaana eriyadan wuu yaqaanaa maxaa la dhahaa qadar mashaq iyo waa isku dhegan yihiin maxlaawi marka maxlaawi lugan ku tagnaba ayadoo duhur tahay oo qoraxduna aad u kulushahay
aan loo ku tagnay aniga gabar abaayada ila socoto ilaahay subxaana watacaala waxaa u weydiinayaa inuu wadanka khayrkiisa soo xujiyo waa abaayo ku xiran asxaabteyda Firdaws isku filan kamid ah oo fiidiyowadeeda fiirsan jirtay laakiin alxamdulilah ilaah maad u sugnaatay markaan way ila socotaa aan fiidiyowga duuba ayada ila socoto waxaan rajaynayaa hooyo walba uu ku haminaysa inay wadan muslim tagtana inuu ilaahay subxaana watacaala uu soo fududeeyo insha allah ayagoo nabadana uu geeyo waxaan ku adfid karaynaa hooyo walbo oo soomaaliyeed oo ilmaheeda inay wadan muslim ay ku korsato ay geysato meel xur ilmaheeda u tahay ee jaceylka hooyanimo u qabto oo mid saxa uu yahay laakiin markii meelahaas la joogo ilmaha jaceylka u qabtay iyo ka cabsida badanba marka wadamo muslimaa lagu koriyaa dheerahayo ilaahay awlaada ha noo barakeeyo ilaahay ha noo xifdiyo xaafidiin daaciyiin ilaahay subxaana watacaala allah nooga dhigo kuwa maalinka dhimanona noo soo duceeya allah subxaana watacaala allah nooga dhigo waa kaas masaajidka qadar mashaqnona iskoolka qadar mashaqna waa kaasaasna ujeedin jiirada maxlaawiyaa kalnay marka meeshaas kale xataa waxaa ku yaala hadda ku qabanayo meel oo bariiska mindiga lagu kariyo iyo maxaa la dhahaa dukaamana meesha ku wada yaalo maxlaawiyaan soo galnay waa ujeedaan asxaabey maxlaawi ayu furuud ayaala ani kor ma soo duubin hoos leh soo duuba marka fiidiyowga intaasaa kusoo gabagabeynaya waa idin salaamaya baliis skraab iyo saar haddaw skraab ku een asalaamu calaykum